madaxweynaha dalka Faransiiska Emmanuel Macron ayaa sheegay in uu fahmi karo sababta ay muslimiinta uga argagaxeen sawir gacmeedka muranka dhaliyay ee muujinaya Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee laakiin waraysi uu siiyay warbaahinta Al Jazeera ayuu ku sheegay in uusan marnaba aqbali karin arinta rabshadaha loogu jawaabayo. hadalka Macron ayaa imaanaya kadib weerarkii Khamiista lagu dilay kaniisad ku taal magaalada Nice kaasi oo looga shakisan yahay in ay geysteen islaamiyiin. waxaa sii kordhaya khilaafka ka dhex caloolsan qaar ka mid ah dalalka muslimiinta ah iyo Macron kaasi oo ku saabsan arinta kartuunka. qaarkood ayaa waxa ay ku booriyeen in la qaadaco wax soo saarka Faransiiska maadaama Mr Macron uu difaacay xuquuqda loo adeegsaday sawirka marka loo eego xuriyatul hadalka. horaantii bishan ayaa macallin qoorta looga jaray xaafad ka mid ah magaalada Paris kadib markii qaar ka mid ah ardaydiisa uu tusay kartoonka sawir uu ku tilmaamay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. dhanka kale wakaaladda wararka ee dalka Tunisia ayaa ku soo waramaysa in 2 qof halkaas lagu xiray oo su'aalana lagu weydiinayo weerarkii ka dhacay Nice ee uu fuliyay nin reer Tunisia ah. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa sheegay in ay u badan tahay in weeraro dheeraad ah ay ka dhacaan dalkaasi Faransiiska. madaxweynaha dalka Faransiiska waxa uu sheegay in uu rumeysnaa in falcelin adag ay kaga imaanayaan ummadda muslimiinta ah sababtoo ah waxa uu yiri hadalkayga ay si qaldan u fahmeen. hadalkayga waxa ay u maleeyeen in aan anigu taageersanahay kartoonada ama xitaa ay dawladda Faransiiskuba ay sameeyeen sawirada. waan fahansanahay dareenka ay muujiyeen waana ixtiraamaya muslimiinta hase yeeshee waa in aad kaalinteeda haatan oo waan in aan sameeyo 2 arrimood in aan sare u qaado xasiloonida iyo sidoo kale in aan ilaaliyo xuquuqda ayuu yiri isaga oo ula jeeda xurriyadda hadalka ee kuwa sameeyay kartuunka. maanta adduunka waxaa ka jira dad diinta islaamka qalqaluuciya iyaga oo adeegsanaya magaca inay difaacayaan diintooda kuwaasi oo dadka dilaya ama gowracaya. maanta waxaa jira rabshado ay wadaan qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha xagjirka ah iyo shakhsiyaadka wata magaca islaamka. Mr Macron ayaa sidoo kale sheegay in qaadacaada alaabta Faransiiska ah ee la soo jeediyay in ay tahay mid aan u qalmin oo ayna aqbali karin. haddaba waa maxay micnaha guud ee hadalka Mr Macron? 3 qof ayaa tooray lagu dilay magaalada Nice Khamiistii waxaana falkaasi geystay nin reer Tunisia ah oo habeen ka hor ka yimid koonfurta magaalada Faransiiska. arrintan ayaa horseeday xisad ka dhex caloolsan qaar ka mid ah wadamada ay u badan yihiin muslimiinta iyo Macron iyada oo sawirada hogaamiyaha Faransiiska lagu gubay Bangladesh dagaal afka ahna uu la galay madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan kaasi oo su'aal ka keenay caafimaadka maskaxda ee madaxweynaha dalka Faransiiska. madaxweyne Macron ayaa weerarka mindida loo adeegsaday ku tilmaamay weerar argagixiso oo islaami ah. madaxweynaha dalka Faransiiska ayaa mar sii horeysa sheegay hadal ka careysiiyay muslimiinta kadib markii la gowracay macallin ardaydiisa tusay sawir ku saabsan Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Macron ayaa si xoogan u difaacay sawirka macallinka uu ardaydiisa tusay waxa uuna sheegay in ay tahay xuriyatul qowl. sawirada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee waxay muslimiinta u horseedi kartaa ciqaab culus sababtoo ah dhaqanka islaamka waxa uu si cad u mamnuucaya in sawiro ku saabsan Nabi Maxamed iyo Ilaahayba la keeno laguna tilmaamo in ay kuwaasi ayaga yihiin.